casharka waxaan ku baran doonaa Pinnacle versionkiisu yahay Pinnacle Studio oo ka mid ah softwareska loogu talagalay video editingka. Pinnacle-ku wuxuu ka mid yahay videoyada lagu qaabeeyo muuqaalka oo loo yaqaan video editors. marka Pinnacle Studio versionkiisa 15 baynu kan ku eegi doonaa. version kale ka dambeeyo jira laakiin wax yar oo saayidun ku soo daraan inta badan wax badan kaga duwana ku hore marka qaabka laga hadlayo qaabka isticmaalkiisa, laakiin wax yar cusub ee uu ku soo daray qofku isaga arki kara. marka Pinnacle Studio sad app-kiisa soo raacin doonaa casharkeena. marka hore waa kan Pinnacle Studio inaad ku duubataa habka loogu duubano waxaad ku baranaysaa casharada lagu barto sida softwareska loogu duubo computerka markaad ku reebiso. marka waxaanu eeginaa casharkeena waxaanu qaabkan u dhigi doonaa koorsadan barashada Pinnacle Studio qaab fudud oo ah in aynu projects sida loo sameeyo aan qofka tusno iyo inta yar muqadimada wixii qofku uga baahan yahay. marka casharkan koorsada waxaan ku baran doonaa projects aynu ku sameyn doonaa Pinnacle-ka muhiimaduna waa inta qofku uu fahmo. marka barnaamijku inoo soo kacaya barnaamij culus computerkaagu hadduu yahay computer iska low ah oo sida 2 GB amba 1 GB RAM-kiisu culays badan ayuu ku sameynayaa. marka waxa muhiim ah qofku inuu computerka markuu ku shumeeyo inuu computerkiisa aan wax badan oo kale ku shumin, laakiin haddii RAM-kaagu 2 GB si wanaagsan ayuu kugu shaqeynayaa. marka koobaad qaabkiisa koobaad ee Pinnacle Studio waa qaabkan kadib si yar oo fudud ayaynu sharxi doonaa oo wax aad u fudud markaad fahanto. marka koobaad qaybtani waa qaybta aynu imika sharxi doono oo ah habka lagu barto caloosha koobaad amba meesha lagu dhisayo projectka iyo qaybuhu ka kooban yahay. project kasta wuxuu ka kooban yahay sida cod ama cod iyo xuruuf iyo mid la duubay iyo mid kamarada muuqaal ah. qaybahan aad arkaysaa mid walba macno gooni ayuu uga turjumayaa markaynu ka hadlayno. hadda qaybtan kamaradu waxay sheegaysaa wax kasta oo muuqaal ah halkan ayuu soo gelayaa, intan ayuu ku fadhiisanayaa. wax kasta cod la duubayna intan ayuu ku fadhiisanayaa layerkan leadkaas. wax kasta xuruufina halkan ayuu ku fadhiisanayaa marka projectka la dhisayo. wax kasta cod ina halkan ayuu ku fadhiisanayaa. wax kasta dhageysi ahina halkan uu ku fadhiisanayaa. qaybtani waa qaybta koobaad ee ah nidaamka marka la dhisayo projectka. qaybtaas sare ee layerka sare wuxuu ku sheegayaa mid walba intuu yahay. hadda imika halkan minute waa ilaa halkaas 1 minute waa meelahaas. halkan waa 1 minute iyo 12 second. labada minute halka ay ku joogan intaas haddii la project samee 2 minute soconaya waa inaad halkan ka eegataa. waad ka badin kartaa oo qof inta doonta ayaad sameyn kartaa. wax kolba ku xirantay projectkaagu intuu dhererka leeyahay. waxaad sameysaa project 1 saacada waxa weeyaan waa 60 second waa dheeri waa project waxoogaa soconaya marka ilaa 2 maalmood inuu ku qaato ayaa laga yaabaa dhisidiisu. haddaba waxaa kaloo muhiim ah qof inuu fahmo markuu isticmaalayo Pinnacle Studio-ga inuu kala ilaaliyo kuwan uu kala fahansan yahay mid walba halka ku dhacayso. casharada soo socda la soco.